kadib markii aynu qaybtii hore ku soo sheegnay socdaalkii Nebi Suleymaan ee dhinaca koonfureed, dhacdooyinkii labadii waadi ee quraanshada iyo jinka, iyo warkii hududka ee boqortooyadii quruxda badnayd iyo qasriyadeedii, iyo sidii dadkeedii u caabudi jireen qorraxda iyo sidii hududku u gaadhsiiyey warkooda Nebi Suleymaan. waxaynu muuqaalkeenan maanta kaga hadlaynaa wixii ka dhacay boqortooyadaas quruxda badnayd ee fogeyd. balse haddii aanad hore u soo daawan, waxaan labadii qaybood ee hore linkii wada soo dhigaya qaybta hoose description-ka, halkaasna ka daawo. laakiin inta aynaan gudagelin muuqaalkeenna maanta, haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dheh channelka, muuqaalkana like saar. hududkii wuxuu qaaday warqaddii Nebi Suleymaan ugu dhiibay Balqiis, wuxuuna u duulay dhankii qasrigeedii weynaa. wuxuuna arkay iyadoo ku fadhida carshigeedii, ayna horteeda joogaan wasiiradeedii iyo shacabkeedii. waxaana la sheegaa inuu warqaddii ugu tuuray qolkeedii intii ay hurudday, isna wuxuu ku dhuuntay meel aan ka fogayn si uu u gaadhsiiyo Nebi Suleymaan jawaab celintooda. waxayna markay soo kacday aragtay warqaddii ka timi Nebi Suleymaan iyo dhambaalkii ay xambaarsanayd. waxayna isugu yeedhay golihii shuurada ama talada, kuwaasoo ay ka tala qaadan jirtay go'aan kasta oo ay qaadanayso. waxayna u akhriday warqaddii soo gaadhay ciddii iyada la joogtay iyo dhambaalkay sidayba. warqaddaas oo ay ku qorrayd inay ka timi Nebi Suleymaan magaca Ilaahay, kadibna uu ku amriyay inay iyagoo muslimiina u yimaadaan. waxayna ku tidhi, madax yahay iiga warrama ama ii tilmaama, iigana warrama ra'yigiinna, bimacnaa maxaynu ugu jawaabnaa? ma ihi mid keligeed tala goosanaysa ilaa aad idinkuna ra'yigiinna ka dhiibataan. waxayna ku yidhaahdeen, waxaanu nahay qaar aad u awood badan, aadna ugu daran dagaalka. amarkuna aduu kuu sugnaaday, bimacnaa taladu na amarna waxaadna amrayso. balse haddaynu halkaas yaro dul taagno, waxa uu mujaahid yidhi, waxa Balqiis hoos iman jiray 12,000 oo qayl. kelmadda qaylna waa kelmad ay Yamantu xilligii jaahiliga u taqaanay boqorka, kaasoo hoos iman jiray boqorka weyn, oo maantana innaga agteena u dhiganta sida madaxweyne maamul goboleed oo kale. waxaana qayl kasta hoos iman jiray 100,000 oo dagaalyahan. waad qiyaasi kartaa markaa awoodday ku faanayeen reer Saba. ku dhufo 12,000 100,000, maxaa kuu soo baxay? weliba Ibnu Cabbaas waaba ka sii badiyaa, wuxuuna gaadhsiiyaa 100,000 oo qaylkii kastana uu hoos iman jiray 100,000 oo dagaalyahan. aynuse ku sii soconno qisadeennii. balse Balqiis waxay ahayd boqorad aad maskax badan, waxayna ugu halcelisay. boqorradu haddii ay magaalo galaan way fasahaadiyaan, wayna bahdilaan kuweeda sharafta leh, sidaas ayayna falaan. waxayna taasi ina tusaysaa in Balqiis ay ahayd boqorad warhaysay oo aqoon ballaadhan u leh axwaasha boqorrada iyo taariikhdooda. waxayna tidhi iyadoo hadalkeedii sii wadata, Suleymaanna hore ayaanu maqlay, mana doonayo dagaal ay qoomkayga ku duloobaan. waxaanan u dirayaa hadeed, haddii uu yahay mid adduunyo doon ah wuu ku qancayaa, wuuna inaga laabanayaa. haddii uu diidana waa nin mabda'a leh, waana nebi, mana celinayso lacag iyo hantiyi toona. waxaanay noo habboon inaynu raacno diintiisana qaadanno. markaa waxaynu u tegaynaa innagoo muslimiina ka hor intaynaan u tegin innagoo maxaabiis oo katiinadaysan ama xidhxidhan. waxaanan eegayaa waxay ergadu la soo noqoto, bimacnaa inuu qaato ama diido. ergada iyo Balqiis waxay u tageen Nebi Suleymaan iyagoo u sida hadiyaddii loo soo dhiibay. waxayna u geeyeen Nebi Suleymaan sanduuqyo ay ka buuxaan dahab, marjaan iyo dhagaxaan qaali ah. markuu Nebi Suleymaan arkayna wuxuu ku yidhi, ma xoolo ayaad i siinaysaan? waxa Ilaahay siiyey hadday tahay mulki iyo hanti ayaa ka badan kana khayr badan. mana ihi mid ku farxaya hadiyaddan aad ii soo hadiyeyseen, balse idinka ayaa ku farxa hadiyadda la idiin soo hadiyeeyo. wuxuuna Nebi Suleymaan u raaciyey, ku noqo una sheeg, waxaannu la iman doonaa ciidan aanay awood iyo tamar u lahayn inay iska difaacaan. waxaannuna ka saari doonaa dhulkooda iyagoo dulaysan haddii aanay ii iman iyagoo muslimiina. waxayna ergadii ku soo noqotay Balqiis, waxayna u sheegeen wixii ay maqleen. markaas ayaa Balqiis ku amartay qoomkeedii inay isdhiibaan. waxayna u baxday dhanka Nebi Suleymaan ee waqooyi, iyadoo ay la socdaan mufti aad u weyn oo qoomkeedii ah. wuxuuna ogaaday Nebi Suleymaan calayhi salaam soo bixidoodii, wuxuuna u sii diyaariyey mucjisooyin Balqiis ka yaabiyey.
haddaba waa maxay mucjisadaasi? wuxuu ogaaday hududkii inay soo baxday Balqiis, wuxuuna uga warramay Nebi Suleymaan soo bixitaankeeda. markaas ayuu Nebi Suleymaan ciddii isaga markaas la joogtay oo ahaa ashraaftii insiga iyo jinka weydiiyey. kini ayaa ii keeniyay carshigeeda ka hor intaanay ii iman iyaga oo muslimiina. waxaana u jawaabay cifriid jinka ka mida, wuxuuna ku yidhi, anaa kuu keenaya inta aanad booskaaga ka istaagin. waxaanan ahay mid awood u leh soo qaadidiisa, aaminna ku ah ilaalintiisa, oo aan khiyaamaynin macdanaha qaaliga ee uu ka samaysan yahay. balse waxaa hadlay mid insiga ka mida oo cilmi u lahaa kitaabka Ilaahay, wuxuuna Nebi Suleymaan ku yidhi, anaa kuu keenaya inta aanay ishaadu markay ilka aragti gaadho aanay ku soo noqon ama aanad ka soo celin. sida ayaana dhacday oo muddadaas ilbidhiqsiyada ah ayuu ku keenay carshiga Balqiis. wuxuuna arkay Nebi Suleymaan markiiba isagoo hortiisa yaalla. wuxuuna amray in wax laga bedelo si uu u tijaabiyo Balqiis inay garato ama inay garan weydo. wuxuuna Nebi Suleymaan sidoo kale jinkii ku amray inuu u diyaariyaan dhisme ay degaan oo lagu soo dhoweeyo. waxayna dhiseen dhisme ka samaysan quraarada caddaanta biyaha u eg, weliba kaasoo hoostiisuna biyo tahay. biyahaas oo ay ku dhex jiraan xayawaankii baddu. waxayna markii wafdiga Balqiis u yimaadeen Nebi Suleymaan ayaa waxay aragtay carshigeedii oo wax laga beddelay, wayna yaabtay. markaas ayay eegtay qoomkeedii, waxayna aragtay iyaguna yaaban oo ama kaagsan. wuxuuna Nebi Suleymaan weydiiyey, kani ma yahay carshigaagii? waxayna ugu jawaabtay, waxaad mooddaa inuu isagii yahay, waanan kuu keenay qoomkaygii iyagoo muslimiina. wayna ka shakday oo haani way odhan weyday, mayana way odhan weyday. sababtoo ah keedii qasrigeedii ayay kaga timi, haddana kanina waaba u eg yahay. wuxuuna Nebi Suleymaan ugu jawaabay, adiga iyo qoomkaaguba waxaad tihiin qaar ammaana oo la nabadgeliyey. waxaadna ahaan doontaa boqoradda qoomkaaga, wadna maamuli doontaa. waxaadna ku xukumi doontaa wixii Ilaahay amray. waxayna ka dalbatay Balqiis inay ku noqoto qoomkeedii si ay u gaadhsiiso diinta Ilaahay ee islaamnimada. markaas ayuu Nebi Suleymaan u fidiyey martiqaad, wuxuuna u soo bandhigay inay ka nasto dhibkii safarka. wayna aqbashay martiqaadkiisii. waxaana loo gelbiyey dhankii qasriga cusba, halkaasoo Nebi Suleymaanna uu dhigtay sariirtiisii uuna ku fadhiistay. waxaana goobta joogay ciidankiisii oo jin, insi iyo shimbiraba ah. wuxuuna ku yidhi, soo gal dhismaha, si uu u tusiyo mulki ama boqortinimo iyo cisi ka sharaf badan iyo madaxtinimo iyo maamulka weynkeeda. waxayna eegtay dhulkiisii, waxayna u qaadatay inuu yahay bad, caddaanta iyo xayawaanka hoos mariya awgeed. waxayna iyadoo ka baqaysa inay maryaheedu ku qayaan ayaa waxay sare u qaaday maryaheedii, waxayna muujisay lugaheedii. waxayna tidhi, ina Daawud miyuu waayay cadaab aan ka ahayn inuu iqarqiyo mooyaane? wuxuuna Nebi Suleymaan ku yidhi markuu arkay iyadoo maryaheedii sare u faydatay, ma aha bad ee waa dhisme laga dhisay quraarad. markaas ayay ka baxday jaaligii ay ku jirtay, ayna u qirtay Nebi Suleymaan nebinimadii iyo weynaantii boqortinimadiisa. waxayna tidhi iyadoo yaqiinsan oo rumaysan, Ilaahayoo naftayda ayaan dulmaya caabudadii aan caabudaya qorraxda. waxaanan u islaamay oo u hoggaansamay Suleymaan maciisa Ilaahay Rabbiga caalamka oo dhan. wayna islaamtay. balse arrinka sheegaya inuu guursaday Nebi Suleymaan Balqiis marba dhan baa loo qaadaa, marna waxaa la sheegay inuu guursaday, marna inaanu guursan. balse ay guursatay nin qoomkeedii ka mid a, laakiinse hore u sii gelmayno dhankaas. laakiin ugu dambayn markay islaamtay way ku noqotay qoomkeedii iyo boqortinimadeedii. Nebi Suleymaan calayhi salaam waxau cimrigiisa ku qaatay inuu raciyadiisa cadaalad ku hoggaamiyo, rabbigiina uu cibaadada ugu dhowaado, iyadoo intuu taagan yahay ee cibaadaysanaya aanay cidina ku dhiiran jirin inay u dhowaato. wuxuuna saldhig ka dhigtay magaalada Qudus ilaa uu ka geeriyoonayay. waxaana la tilmaamay inuu markii uu dareemay soo dhowaadka geeridiisii uu aaday masjidka Al-Aqsa, uuna galay mixraabkiisii si uu Ilaahay ugu caabudo. daba isaga ushiisii cuskanaya oo ku tiirsan ayuu u yimid malakulmowdkii oo uu naftii ka qaaday. jidhkiisina wuu taagnaa iyadoo ushii hayso, isagoo sidii ahaa muddo.
iyadoo aanay jiinka iyo dadkuba aanay ogeyn geeridiisa aanay kuna dhiiran karin inay u dhowaadaan intuu mixraabkiisa ku jiro ilaa markii dabawshii awaar ku baxay ayna jabtay meydkiina uu dhulka ku dhacay waxaana faafay warka geeridiisa waxayna reer bani Israa'iil u galbiyeen qabrigiisii waxayna ka soo noqdeen qabrigiisii iyagoo ku celcelinaya سبحانك اللهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء waxayna kuwaasi ahaayeen mucjisooyinkii Ilaahay siiyey Nabi Suleymaan calayhi salaam kuwaas oo in Ilaahu sakhiray dabaylaha jinka iyo insiga iyagoo amarkiisa ku socon jiray waana mucjiso weyn iyo boqortinimo aan ciise ka horeysay ama ka dambeysay aanu Ilaahay siin intaas ayuuna ku eegahay muuqaalkeenu hana ilaawin inaad channelka subscribe tidhaahdo